أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله. akhyaarta iyo dhalinyarada meesha isugu imaatay horta marka koowaad sheekha oo aayadda quraanka noo akhriyay khayr Allah siiyo. marka xigta kulankan wuxuu ahaa kulan oo isxog waraysi ah oo dhalinyarada beesha Coormala degmadan Baardheere ah. intaas kadib anaan idinku isugu yeeray maadaama aan ka mid ahay ama aanba ahayba gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baardheere ee Coormala oo 20 waxaan u maleynaa haddii aan qaldaneen 2022 alii doortay maqaayadii oo walanwal mar aan saan oo kale u fariisay saan ma ahan waa ka dad badneen hadda dadkii oo jilib culuska bisa isugu yeernay markaas laakiin dad badan aa joogay oo dhalinyaro tiro badan haween odayaal xataa waa joogeen marka kulamadii kadib kulamo kale waa jireen marka hadda maadaama marka xogaa aan safari iyo wax aan muddo kuma maqnaay maadaama aan imaaday waxaan isdhahay dhalinyaradii intooda maadaama aan la wada helayn dadka dad shaqo ay yihiin intooda muhiimka ah ama intii la heli kara maalinko ama isugu yeertaa horta kulankan intaas waay muhiimadiisu midda xigtana reerkeena oo Coormale ah badanaa ahmiyad ma siiyaan kulamada iyo dadka inay is abaabulaano ma siiyaan. Soomaalida waxay dhahdaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan. nin walba subax hadduu beertiisa u kala iyo oo xoolihiisu iska raacdo oo ninka kale uu danaynin ama waxa ma soo kordhin kara hal qof far kaligeed forma dhaqdan waa la dhaamo marka in macnaha oo dadkii wixii suuragal ah ee sheeg wixii kulan la qaban kara bil ha noqdo 2 bilood kadib ha noqdo 5 bilood kadib ha noqdo waliba bil walba hal mar in la kulmo oo wixii markaas reerkan ka qaldano oo Baardheere ku saabsan reerka meel badan u jooga hadda anaka Baardheere aan deegaan u nahay marka horta kulankan waxaan isugu yeeray intaas is update gareentaas ciddii hadda xog fiican noo hayso oo sheeg oo nala wadaagayso saas waxaas qabiil noocaas jirtay wax horumar noocaas la sameeyay dhigi kartan okay waay intii hadda aan joogay meeshaan 2 sano iyo 3 sano ay ku dhowdahay u maleena 3 sano ay ku dhowdahay u maleena aan bi isfaaliye wax badan aan qabtay waxyaalaha aan qabto waxa kamid ah horta koow markii hore wax urur dhalinyaro la joogo beesha ay leedahay ma jirin meeshaan ku soo bilawnay koow kadibna ay shay kulmo kale gooni waa sameeyay waxaa kaloo sameeyay degmadan qabiilaadka deganaan ka mid nahay xogo dhaqdhaqaaqa aan ka sameeyay intaan joogaani inkastoo hadda sanadkii ugu dambeeyay aan maqnay dhaqdhaqaaqan ka sameeyay qof oo xaafad ka shaqeeya waa shaqeynay qof kale adana meel kale ka shaqeynay shaqada waa geynay asaga diida u maleena horta sheeg marka waxyaalo badan aan sameeyay marka waxaan rabnaa in sheeg sidii hawsha aan u wadno aniga maadaama aan ay gudoomiye ninkaan gudoomiye ku xigeenkayga waay Abdi Jogo Sani marka
anigana ii sheeg maxamed nuur maxamed ali dhaawa taqaani maxamed hirisoon waa ku magac dheeraay magaciisa rasmiga laakiin nuur waay marka waxaan rabaa maanta oo isugu yar jilib culusti aad tihiin aniga maadaama safarkaygu uu badan yahay oo laga yaabo inaan hadda sanadii xoogaa maqnaay aan 2 sano maqnaado waxaan rabaa horta in gudoomiye dhalinyaradii qof loo dhiibo degmadan urur dhalinyaray leedahay urur sportsay leedahay si uu ula falgala haddii hadda inta lagu magacaabi karan okay haddii haddana ii sheeg la dhihi karo gudoomiyihii ururka dhalinyarada coormala ee baar dheer maadaama aan ahay oo haddaba aan ahay maadaama safaradeedii ay badan yihiin haddaba sanad iyo xoogaa maqnaay inaan laabto laga yaabo oo inaan muddo maqnaada laga yaabo haddana in gudoomiye dhalinyaro oo reerkan oo degmadan ka shaqeeya la helo oo ani i bedelo sababtoo ay hadda waxaa jira gudoomiye dhalinyaro la dooranayo hadda update aan u maleynaa degmada ii sheeg badanaan anaga hadda intaan badan kama warhaynaa u maleynaa hadda gudoomiye dhalinyaro si lagu dooran lahaa falkeeda ay socotaa waaba aad weli qtaata marka maadaama dadkii oo saas ay wax u dooranayeen gudoomiye dhalinyaro oo degmada la dooranayo anakan inaan update ahaano oo aan nin reerkan ii sheeg magii oo la kulmaayana kulisiye dhalinyarada magii ii sheeg meel kale oo tacsiya dhici karta qof kale horumar kale oo la arki karaa in laisku adi shaqadii oo caadiga ahayd oo qof dhalinyaro oo ii sheeg dadkan oo qabiilkan ka dhashay oo u soo baxay uu qaban lahay qof qabto maadaama aanay safaradii ay badan yihiin horta waa rabnaa haddii hadda kulankan lagu qaban karan okay haddii haddana dib aan u dhiganayno oo kulankan aan samaysanaynana haddana okay waay marka dadka ganacsatada waa joogtaa ganacsatada qabiilkan waxaa waaye ganacsatadiisa waa xoogo waa qayraysan yihiin horta nin ganacsato may waa badan yihiin ha badnaadee waa qayraysan yihiin markaan leeyahay waxaa waaye ayakaa shaqaysta ma ogi dadka ma shaqaalaysiiyaan nin coormalo oo ganacsate oo shaqaalaysiiyey coormala waa jiraan laakiin hal ninaa jiro nin cabdulaahi sheekh la dhaha oo puntland ka shaqeeya oo boosaaasi iyo xalwa kismaayo kambaniga xalwa kismaayo nin kale ninkaasoo kaloo 10 coormala haddii ka soo bixi leed wax shaqo la'aan ma jiri leen ninkaas ya bes saasaan rabnaa maya marka waxaan rabnaa dadka inay saasoo kale oo dadka loo shaqalaysa ganacsatada intii qof kale aa qabsan lahayd anaga hadda wax la kala qarinayo male mogtahay coormalo leh waa mogta danta coormala ka hadlayna mo inta qof kale ummad kale aa shaqaalaysiin leed ina midka walaalka aa shaqaalaysiin waka marka ganacsatada waxaan ka codsanaynaa dadka dhalinyarada oo magaalada joogta maadaama kulankaana ay fadhiyaan inay shaqaalaysiiyaan si uu sheeg berrina qaaraanna looga qaato asagana qoyskiisa ugu filnaado sheeg baadiyahana ay ugu soo baxaan taas waa dardaaran kulanku waa hadalku waa dheereeyey sheeg reer baar dheere oo coormale ah waxaan u rajaynaa horumar intaanna ma ahaan doona waa sii wadi doonaa wixii tale iyo wixii kulan ay labadaba dardaarankaas ganacsatada aan siinahay iyo hoggaankii dhalinyarada oo qof aan u dhiiban doono haddii ilaa yidhahdo marka intaasaan kusoo koobayaa marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu beesha waa salaaman tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan jecelnahay horta inta dhammaanteen aan iskugu imaanay waa danteen oo guud waxaan ka hadlayno waxaan rabnaa marka guddoomiyahaasi uu sheega waaye marka waxaan rabnaa danta aan ka hadlayno waxaan rabnaa inay wax oo horey u socda ay noqdaan
oo annaga aan moogtahay aan noqono dad horumar samaynayn maadaama marka aan isu imaanno waxaan rabnaa inaan horumarkeena ka hadalno sida uu guddoomiyaha sheegay on dadka moogta aan nin walba ninka kale uu ka warqabo aan soo ogaano on moogtahay aan mar kasta isu imaanno marka waxaan rajaynaynaa guddoomiyahaas uu sheegay in hadda qof kale oo lagu sii bedelay guddoomiyaha hadduu jirin haddii in noola sheega waa rabnaa hadduusan jirin inuu guddoomiyaha noo sii ahaado hawsha uu noo sii wadana waa rabnaa oo hadda noo sii ahaado waa taas waa tii guddoomiyaha taasaan ka leenahay tan kale waxaan rabnaa in moogtahay si uu guddoomiyaha u sheegay aan mar walba aan joogtayn karna hadduu asaga maqan yahay iyo hadduu joogaba in wixii danaheenna iyo wixii system inaan ka hadalno bulshadana aan wax la qaybsanno oon la qaybsanayno hadduu asaga intuu joogo lafteeda waxaan rabnaa wixii horumar oo la samaynayo inuu dardar geliyo oo intuu joogo uu moogtahay wax muuqdo oon arka karna inuu haddana uu na tuso oo sida nidaam ahaan iyo jawi ahaan carrada leemo waxyaalo fara badan la qaybsanaya oo system badan systemkaas waxaan ka rabnaa guddoomiyaha oo dhalinyarada inuu u doodo uu soo dhiciyo xuquuqdaas asaan ka rabnaa oo dhaawarna systemkan aan soo dhiciyo oo muuqdo oo kan taas marka wax badan way jireen laakiin xogo dhaliil yar aan annaga laftayna aan ka qabnaa annagana aan ka midnahay lafteeda dhaliisha aan ka midnahay inkastoo socodkayna uu moogta iska yaraay laakiin qofku waxaa la rabaa moogta markuu hore kama ordo cunuga waa inuu moogta daa uu gurguurtaa oo marka shaqada maadaama ay nagu cusbeed shaqa aan dhawaangal aan ku ahayn waxaan marka waxyaalo fara badan naga daasana laakiin hadda waxaan rabnaa inaan hore u socno oon talaabsano marka insha allah bidnillahi kariim ninkii hadda moogtahay waxaan rabnaa inaan hawshaas aan galno oon hore u sii socno guddoomiyaha annaga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ka bax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دمان وحان نكرود الدارمي إن إلهي كعبسنا سبحانه وتعالى معايا لقوم دا إسوي مادان وحكوا واجبتين إلهي سبحانه وتعالى عبسيد سوا في سوء دردارمان وح لود لحالي وح أن لود دعينين وبط هذا لا كجر شدتك بالآذنك قف والبموكتهاي مالي أوتاغنتهي gudoomiyahana munaasabadan uu noo sameeyay uu ku mahadsan yahay mar kale u mahad celinayna waxa kale oo aan rabaa inaan meeshan ka sheego soo sheegay dadka shaqaha la siiri shaqada moogtahay qofka intuu yaqaan la siin karaa haddii kale waxyaalaha Soomaalida hadda ku dhacay dibdhac ku dhacay kamid qofka inaad tiraahdo walaalow kaale oo aad tiraahdo qabiilan ku shaqaaleysana wuxuusan garin adna uu ku lumiyo adna alunto marka saxana ma ahan waxaan leeyahay horta mid koowaad qofka wuxuu yaqaano hadduu aqoontiisa ay ku egtaa laga shaqaaleysan taas halkaas ugu digeynaa walow loo baahan yahay mar walba in cadaaladda laga shaqeeyo maxaa yeelay qofka bini aadanka cadaaladda deeqdo markay saa tahay marka waxaa halkay ku soo gabagabeynaya in mar walba beesha iska warqabto oo dadka iska warqabaan si ilaahay dartiisna ay isaga warqabaan oo aan laqdabay iyo wax ku jirin marka kale guddoomiyaha waxaan leeyahay hadda cid ku bedesho hadda aan anaga arkayna ma jirto in xaajada aan meeshii sida aan ugu haysi iyo howlaha saa noogu wadid wixii markaas ayada ahna adiga astiraha ma dhaqaajin kartidna dadkaada akhyaarta u soo laabat taasaa muhiim ah waxaan inta soo istaagay bis inaan hadda wax bedel oo aan hadda hayn inta ku hayn aynan jirin guddoomiye saas ogaanaysaa qada sharafta aan noo samaysan waa ku mahadsan tahay mar kale ku mahadsan tahay insha allah بسم الله أولا إلهي سبحانه وتعالى أما هاد أسقناتي بعد حومة علينا دلنيرada meeshaan iskugu timad waxa kale oo mahad celinayna gudoomiyaheena iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan dhalinyarada halkan iskugu imaatay ee ah beesha Ormale anagu waxaan nahay dhalinyarada degan Baardheer deegaanka waxaan nahay dhalinyaro isu timaaday markii inta aan shirkan maanta ahayn aan ka reebno dhalinyaro aday isu timaaday oo ah populationka degan dhammaantiis oo ah dhalinyaro samafalyaal ah oo xaafadda dhankaas iyo kurmaan ahayd marka alxamdulillah maanta haddaan u joogno dhalinyaradeenna oo aan nahay beesha Ormale maanta haddaan isbarashadeeni iyo macnahaas aan u wada jaaqaadi lahaynay aan isku hadaf aan u noqon lahayn haddaan maanta taaganahay waa ilaahay mahadiis anoona badinaynin waxaan kusoo koobayaa dhalinyarada inta imaatay maanta aan ku bogaadinayaa
inay maanta keliya aysan ka noqonin ay hor u socdaan ee hadafkooda ka miri dhaliyaan shirir maanta keliya in la iskugu imaadayo lagu kala tegay inuusan noqon marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb gala kulankan maanta saan ah ama kulamo ka badan waa rajaynaya haddii ilaahay idma qaas ahaan waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaheena maxamed yariisow oo suurtageliyey in maanta inta la iskugu imaado oo casumo dadkan inta iskugu imaaday dhallinyaradan uu sameeyo qada sharaf ilaahay yaa ku mahadsan dardaarankaygan wuxuu kusoo kooban yahay maanta keliyuusan noqonin hala dadaalo horumar sidii loo gaari lahaa aan ugu mid noqon lahayna bulshada degan dhallinyaradeeda inaan hore u soconaa rabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu